waxaynu bilaabi doonaa barnaamijkeenu bilaabi doonaa ujeedada loo qabtay panelkana waxa weeye ama dood cilmiyeedkana in kor loo qaado fahamka iyo adeegsiga teknolojiyadda iyadoo la doonayo in kor loo qaado sidoo kale hal-abuurka iyo wax soo saarka ICT-ga taasa markaa waxay keentay in la qabto doodo la xiriira si dadku u fahmaan in la deegaameeyo ama la Soomaaliyeeyo aqoontii ICT-ga imikana waxaan ku wareejin doonaa xiriiriyaha panelka oo ah Suleekha oo waxa weeye iyaduna faahfaahin dheeraad ah naga sii doonta xubnaha ka qaybgalaya dooda iyo qof waliba takhasuskiisa waxa uu yahay iyo doorka uu ku qaadan doono hadduu alla idmo inta ay doodu socoto doodo qura intan ku ekaan maysa laakiin waxa la idin siin doonaa inay dadkuna fursad u heshaan inaad su'aalo weydiisaan wixii idinka soo baxa markaad dhegaysataan ama daawataan dooda hadduu alla idmo madaxda ardayda marti sharafta iyo dhammaan inta inagala socota aaladaha la iska maqlo ama la isku arko dhammaantiin waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulley madasheenani maanta waxay daaran tahay af Soomaaliyeynta tiknoolajiyadda ICT-ga ama deegaameynta aqoonta ICT-ga in badanna maanta tiknoolajiyadda adduunka marka laga hadlo waxa weeyaan waxa kaliya ee lagu tartamo noloshii aadamahana qaybo badan ka taabatay hadday noqoto waxbarashadii hadday noqoto habka loo wada xidhiidho hadday noqoto dhaqaalaha oo maanta ta ugu badan ee adduunku isku eryanaya tiknoolajiyadii waxay noqotay mid raad weyn ku leh xaqiiqatan marka laga hadlo positive-ka laakiin taa cagsigeeda xagga dambe haddaan iska taagno tiknoolajiyadii waxay noqotay duulaan runtii ku duulaysa afafka marka laga soo tago intii iyagu tiknoolajiyadda isticmaalkeeda ama hal-abuurkeeda iska lahaa laakiin dadkii runtii tiknoolajiyadda soo dhoofiyey caqabad weyn bay ku tahay jiritaanka afkoogii taal ajligeed bay wasaaradda tiknoolajiyadda oo kaashanaysa maxadka afafka jaamacadda Golis ay runtii inoo soo qabanqaabisay xafladda tan ama munaasabadda tan ay ku soo casuuntay aqoon-yahankii dalka marka waxaan leenahay dhammaantiinba ku soo dhawaada halkan waxa jooga aqoon-yahan kala duwan xaggayga midig baan ka bilaabayaa waxa fadhiya barasare Saleebaan Cabdilaahi Faarax guri barwaaqo oo ah agaasimaha maxadka barashada afafka Soomaali afafka ee jaamacadda Golis runtii barofeseerka ama baraha sare in badan aqoonta uu leeyahay kasako waan aragnaayo maasha Allah in badan buu ku hawlan yahay afafka ururinteena ee dhaqanka hadday noqoto gabayada iyo hadday noqoto maxay wixii aynu suugaan u lahayn imikana wuxuu ku hawlan yahay inta ugu badan ururinta ee bixinta ee tiknoolajiyadda marka waxaan leenahay bare ku soo dhawow hal waxa ku xiga barasare Mustafa Ismaaciil Ceelaabe hormoodka kulliyadda ICT-ga ee jaamacadda Hargeysa University sidoo kale dhinacaygan kale waxa fadhiya injineer Faarax Aadan Haruun maamulaha IT-ga ee Dahabshiil Group oo isaguna runtii ah aqoon-yahan in badan ku soo dhex jiray aqoonta tiknoolajiyadda oo runtii isaguna in badan ka qayb qaadan doona tiknoolajiyadda dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada doodeena baynu ku sii socon doonaaye bal horta waxaynu isla eegi doonaa markaynu ka hadlayno af Soomaaliyeyn af ama in af laga dhigo wixii aad adigu isticmaalaysay ee property-ga u lahayd in badan malaha waxaynu oran lahayn inaynu deegaamayno wax kastoo dad u leeyihiin ama bay'adooda ku noolba waxay yiraahdaan waa deegaameyn marka bal waxaan ku horeysiinayaa Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo professorka bal waxaan weydiinayaa marka uu horeysaba inaynu isla fahamno waa maxay deegaameynta aqoontu khaasatan ICT-ga ama tiknoolajiyadda marka aynu ka hadlayno weydiinta hore waxay ahayd Soomaaliyeynta ereyga deegaameyn aniga waxaad moodaa inuu ugu yar siro guracan
dad gaar ah deegaan gaar ah la siinaya haddii la yiraahdo la deegaame haddii la yiraahdo hal Soomaaliya waxay ku qurxoon tahay Soomaali af kasta erey kasta ku hadasho waan wada leenahay kii ku haboon in la qaato aan la oran gobol hebel iyo hebel baa loo qaato inta haddaan dhaafo anuu waxaan u dhigayaa si kale oo ah horta baahida Soomaaliyeenta ma jirtay hadday jirtayna wax ma laga qabtay goormay bilaabantay intay soo socotay inaynu horta bal marka hore bilowno halka ay dhibaatadu ka soo alkumantay waxaan aanu qabaa haddaynu sooyaalka ku noqono markii ay bilaabantay baahida ah in aqoon aynaan lahayn wax afkeena laynoogu dhigo ayay baahidu bilaabantay taasoo ka soo bilaabmaysa markuu Sheekh Yuusuf al-Kawnayn doonay inuu af Soomaali inagu baro higaadii af Carbeedka ee markii aynu garan weynano af aanu lahayn oo Quraanku ka horaa inoo keenay wuxuu ka bilaabay alfu xamaale ba hosku halle ta korkulabale saasuu u bilaabay ilaa waaga sidii bay u jirtaa imikana waabay ka sii afarjibaarantay qoraalka in la qoro oo af Soomaaliga far loo sameeyo ta keentay waa baahida jirtay inaynu aqoon kasta oo jirtay afkeena ku baranno waa lagu dadaalay oo rag dad badan baa dadaalay dawladdii u dambeysay ciidamaduna waxay qaadatay inay hirgeliso hase yeeshee taakha ku timi oo dagaaladii sokeeye markay dhaceen ay taasina dhibaato la timi guulo la gaaray waa jiraan Dr. Gush Andrevichski wuxuu sheegay 7 guul markuu afkeena qoraa in uu gaaray heer aanay afafka reer Yurub ku gaarin 100 sano aday marka taas waxay ku tusinaysaa dadaalkii la sameeyay inaynu heer sare ka gaarnay waxa la sheegay in uu akhris la'aanta iyo qoris la'aantu ay heer sare gaadhay markii ololihii far Soomaaliya qoraalkii bilaabmay hase yeeshee markii dagaaladii wixii ka dambeeyay ayay taakadaasi ku timi haddaynu reer Soomaaliland nahay lahayn 30 sano inuu nabadgelyo ku naaloonay waxaad moodaa inaan ama wasaaradaha ama hay'adaha kale ama cid kale cid u hagar baxday ama danaysay inay dhibaatadaasi jirto ama ku baraarugsan inaanay jirin ilaa maantadaas waxa runtii maanta marka caawa farxad weyn ah in laba qabto oo heer aqooneed ama jaamacad la isugu keeno inay baahidaasi jirto waayo markay baahi timaado ee dhibaato timaado ayaa la yiraahdaa ee lagu baraarugo muxuu yahay maareynteeduna ay tahay haddaan dhibaatada dareemin de uma baahnaanaysid baynaadka aad ku baraarugto xanuun hadduu ku hayo oo aanu dhibaato ku geysan inta iska ordayso waa in xanuunsanayo laakiin maalinta aad lagu qabto waxaad ogaanaysaa inaad dhakhtar u baahantahay maanta dhakhtar u tagaysa imika tii way taagantay aan ku soo dhawaado sida ay suuqa ka dhawaajisay adduunka afafkii waxa loogu hardamayaa af kasta inuu iska ilaaliyo afafka shisheeye ee ku soo fatahaya ee ay hogaaminayso arintan inuu ka hadlayna aqoontan tiknoolajiyada innaga taa waxa inoo dheer عربي دورين عيدا كلا إنه مال والبطقني إما كواحد كبيرة إنه دلال بدن أو عن في عربية في إنجليزية في الصومالي من ذا لقى هذا إنه الضالي تالف تيجي وحي إنه وحي سا دبعته إنه بيسوي سعتوي هدان ما أنت وحلاقة قبلنا وحنا نقول سا وحي إنه ده إنه دمر صندوقنا أفريقيا السيبا ولا ذا نيمكا غير قلبيات كجلوباليزيشن كشركة وضع واحد مودائن qabsigii hore mid labaad la inoogu daray gumeysi dambe oo xagga afafka ah taas waxay keenaysaa in beri dhow la bilaabo in afarta ama shanta af ee lagaga hadlo United Nationska dad baa aqoonsan United Nationska lafteedu inay tahay dawladda kaliya noqon doonta in adduunka ka taliso marka shanta af ee lagaga hadlo baa noqonaysaa in ay dadku ku wada xiriiraan innagana afafkeena ay Soomaalida ku yareen ay ma dabar go'ayno hase sheedid dadkaas ay naqaadaya haddaynan meenta ka meel samaysan waxay noqonaysaa inaynu berri toole ee dhibaataynaga soo gaadho aan soo koobo waxaan maxay tahay Soomaaliyeyntu aqoonta maaha technology oo kale aqoontoo dhan waxa weeye hab inoo fududaynaya
in aynu si fudud ugu garanno ama aynu ugu axadno aqoonta shisheeyuhu wato ee aynu soo gaadhis haddaynaan aqoontaasi afkeenna ku baran waxna kuma kordhin karo si geefana waynu u adeegsanaynaa tusaale haddaan bixiyo inta halkaa fadhida technology-ga taqaanaa ima ereyga format haddaad weydiiso wuxuu ka odhanayaa waxbaa la tirtirayaa runtii ma tagmiso waa beenta ereyga asalkiisu maaha tirtirid ereyga delete baa tirtirid haddaan marka taasi waxay ku siinaysaa haddaanad garan waxa loo jeedo format wuxuu qabanaya ee uu ka qabanaya marka disk drive ama USB aad samaynayso waxaad arkaysaa markaa inaad gudcur gudayso leen khaladaad haysataa hase yeeshee markaad garato waxbaad ku samayn kartaa waxbaad ku kordhin kartaa ereyga formatting sida ay sheegtay yani buuggii waxaaba halkaa haya engineer cawil baa haya buuggaasi waxaan qoray 1988 markaan dareemay inaan u baahanay in afkeena la Soomaaliyeeyo marka ayaan ka hor dhicin aqoon-yahanada waqtigeeduna marka uu gaabay baan u malaynayaa caqabadaha jira iyo waxa loo baahan yahay laga hortago iyo sida ay tahay loo maareeyo waxa soo dhan waxaan malaynayaa weydiinta dambe ayaan u dhiganay laakiin hadda intan waxa ahayd hordhac inaan sheego baahidaas inay jirto idinkana ay tahay wax idin yaala marka haddaydan idinka laftiina aydan dareenka ama baraaruga la yeelan maanta waxa axwal lagu guuleystay wasaaradii lafteedu ay baraarugtay marka waa dawladdu wasaaraddu kaligeed maadayduna dawladdu ma ka socotaa marka in la baraarugay jaamacadihii Soomaaliga in la dhigo iyadana waa lagu baraarugay hawsha waxaad moodaa inay imikoon inoo bilaabantay laakiin dardar baa laynooga baahan yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay sida fiican ee professorku inooga dhaadhiciyay maadaama uu yidhi professorku haddaan hadalkiisii raaco qofku haddaanu fahmayn ereyga laftarkiisii de waxna kuma kordhin karo waxna kama qaban karo waa qof gurcud gudaya waxayna la fadhiyo halkan professor Ceelaabe professor sida uu inoo sheegay professorkeena kale bal waxaan eegaynaa dadka ku aqoon-yahanka ama dadka baranaya ee luuqadooda hooyo ku baranaya afkooga intee in leeg ama saameyn intee leeg bay ku leedahay saameyn inay ka faa'iideysan karaan teknolojiyada guud ahaan markaynu bal caalamka ka hadlayno bulsho kasta inay afkeedii ku barato cilmigii teknolojiyada ee ay baranaysay haddii aan marka hore intaan su'aasha u gelin haddii aan yara kale caddeeyo erey iminka saan u fahmay loo isticmaalayo interchangeable laysku bedelayo haddaan yara kala caddeeyo yani fahamkayga waxa weeyaan ereygan la leeyahay Soomaaliyeenta iyo marka la leeyahay deegaaminta anigu fahamkayga laba shay oo kala duwan buu yahay sidaan anigu u fahmay Soomaaliyeenta waxa weeyaan wixii in la bedelo oo yani luqad ahaan waa linguistic weeyaan issue marka la leeyahay Soomaaliyeenta sida berigii hore dawladdii hore kacaankii sidii loogu qoray culumta ama sayniska sidii loogu turjumay Soomaaliya oo kale ayuunbay berigii ICT muu jirin berigii siyaad barre uu turjumayay maadooyinka lagu dhigto dugsiyada sare iyo dhexe iyo berigii ICT muu jirin marka ICT-gooda wuxuu ahaa waa cilmi mar dambe runtii ku soo biiray marka saan u arkay horta Soomaaliyeenta waa taas oo waxa weeyaan in luqadii hooyo ee marka loo bedelo ama Carabi ka noqoto ama Soomaali ha noqoto ama Swahili afaf ku doonaha noqdee in loo bedelo anu waxaan arkaa taas inaan caqabad weyn baahayn oo aad u weyn inaanay ahayn laakiin ereygan kale ee la leeyahay deegaaminta oo Englishka lagu yiraahdo localization isagu uu ka badan yahay uu ka sina balaaran yahay marka si loo eego taa luqadda marka taa linguistiga waxaan u dayn doonaa in Cabdiraxmaan oo runtii khabiir oo mudanaan wada shaqeynay jaamacadda Hargeysa intii aanu halkan soo wareegin golis runtii saaxiib dhowna aanu ahayn waxyaalo badan aan ka wada shaqeynay xagga xiriir ka dhaxeeya technology-ga iyo language iyo luqadda
waxaan laakiin anigu kasii hadli doonaa waxaa la yidhaha localizationka ama aqoontii macrifadii in la degaameeyo Soomaali ahaan malaha saas malaha ku noqonaysa waxa kale oo la isticmaalo waxa la yidhaha contextualization waxa la yidhaha contextualization ama contextka in la waafajiyo wadanka marka wax la baranayo ICT-guna runtii waa la mid oo wuxuu la mid yahay luqada cilmi culumtan kale runtii la baranayo way jiraan dib iyo caqabado way jiraan laakiin wuxuu kala mid yahay dhinaca deegaaminta wuxuu kala mid yahay culumtan kale sayniska wuxuu kala mid yahay oo hadaynu ama science dhiganayno ama physics dhiganayno ama waxyaalahaas oo dhan ama xisaab oo kale waxay u baahan yihiin iyagu badayeenayno deegaankeenii wixii laga isticmaalayay wixii localka laga isticmaalayay in aynu ku salayno aynu baahideennii markaasi localization wax kala maaha waxa weeyaan in cilmigan laga dhigo applicable inuu deegaankaagii iyo bay'ad kasta waxay leedahay wax u gaaray leedahay oo inta badan aqoontu waxa weeyaan stages bay soo martaa ama knowledge stages buu soo maraa gaar ahaan cilmigan ICT-guna waa la mid oo marka hore waa la inoo soo dhoofiyey oo waxay dhijina soo day inagu aynu leenahay cilmi aynu inagu leenahay hoosta ka soo baxay maahay waa wax dibadda runtii inooga yimi marka waa takeenaysa clashka takeenaysa baan u malaynayaa inuu yahay maadaama uu yahay waayo dadkan soo sameeyey iyo dadkan develop gareeyay designerska hadda softwareska markaad aragto waxay guddigood ku wada salaysan yihiin waxa weeyaan waa mentalitygoodii ama mental modelkii ka jiray markaa halkaa Europe ama Mareykanka meelihii lagu sameeyey marka taas weeyaan in aynu markaa inagu kii wadankeena ama kii biyadeena inaynu runtii inaynu ku salayno ayaan malaynayaa inay muhiimada tahay marka taa issue-ga localization-ka ayaa runtii anagu arkay inuu yahay in caqabada ugu weyn ee maanta ka taagan marka barashada laga hadlayo ICT-ga waayo cilmigii ardaydii waanu dhigaynaa theoretically waa la dhigayaa practical waa la tusayaa laakiin se weli cilmigeena production muu bedelmin oo muu wax soo saar meynaan u bedelin oo wax soo saar inuu noqdo taasna waxay keenaysaa waa caqabadaha hortaagan localization-ka ama contextualization-kaas aan ka hadlayno waa caqabadaha runtii in haystabay ayay ka mid tahay runtii taas aan soo koobi lahaa mahadsanid professor waxaan u soo gudbayaa Farxaan Aadan Haruun oo ah maamulka Dahabshiil Group ee qaybta IT-ga bal Haruun waxaan ku soo dhaweynayaa inuu bal inoo faahfaahiyo bulshadu markay wax ku isticmaalayso ama ku baranayso afkooga hooyo saameyn intee leeg bay ku yeelan karaan inay waxaan sidii loogu talagalay ay u isticmaalaan haday noqoto arrimihii bulshada haday noqoto dhaqaalihii haday noqoto waxbarashadii saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa inay ka faa'iideystaan dadkani ama ay isticmaali karaan luqadan ee ku soo dhawow iyo wasaaradda teknolojiyadda lafteeda oo runtii door muhiima inoo bilowday runtii aan ku dhiirigelinayo ama aan ugu hambalyeynayo inay wasaaradihii kale runtii kaga fiican yihiin dhinaca runtii deegaamay aqoon in la deegaameeyo marka laga tago ICT-do keliya laba dariiq un baa inoo furan labada dariiqa waxa weeye ICT-dii si aynu u barro bulshadeenna ma bulshadii baynu kaxaynaa oo luqadii teknolojiyadda ku qorayd u geynaa oo Englisha mise teknolojiyadii baynu soo kaxaynaa oo deegaamaynaa oo dadkii u keennaa labadaas baynu kala dooranayna aqoon kasta ood ku baratay luqad aan ahayn luqadaada hooyo haba yaraatee wax macno ay samaynaysaa ma jirto marka muhiimaddu waxa weeye luqadaada hooyo waxaad ku barato wax tayale bay noqon doonaan marka runtii anigu waan taageersanahay in la deegaameeyo aqoonta guud ahaan gaar ahaanna ta ICT-da marka kolley panelku sii socon doonaa intaasaan kusoo koobaya su-aasha waxaan ku noqonayaa professor Ceelaabe professor ma jiraan caqabado imika ka jira goobaha waxbarasho ee ICT-ga inagoo eegayna xaggii afka way jiraan baan odhan karaa laakiin
taas kuma koobno ICT oo kaliya ee waxyaalahan kale la baranayo ama cilmigan kale la baranayo runtii uu la qabaa laakiin caqabada gaarka ICT-ga waa waxa weeyaan in ICT-ga waxa barashadiisa lagu bilaabaa wadankeena marka ardaygu gaadho waxaan tertiary-ga la yiraahdo waxbarashadan sare markuu gaadho halka dunida kale iyo Afrikadan xitaa inoo dhowba stage hoose ardayga loogu bilaabo marka caqabadu ma aha xagga luqadda oo ardaygeeniba inagan u dhigayna markuu primary-ga bilaababa ama dugsiga dhexaba markuu soo galo waatan Ingiriisiga loo dhigayo wax ku baranaya baadooyinka laakiin waxa ka maqan waxa weeyaan skill-kii ama concept-kii technology-ga ayaa runtii maqan oo ah waa guriga xagga sare ka dhisayso aqoontu waxay ku fiican tahay marka aad hoosta laga dhiso waayo guriga marka la dhisayo waxaanu naqaanaa daseeska laga bilaaba kadib markaas la saaraa dhinacyada gidaarada kadib roofka la saaraa saas oo kale marka mushkiladda nimka ICT-ga haysata waxa weeyaan ardaygii oo isu haysta arday jaamacad dhiganaya oo haddana illiterate ah oo xaggii ICT-ga aad u dambeeya marka mushkiladda in haysata waxa weeyaan waxaan adduunka international looga yaqaano in dadkan literacy-ga gap baa jira ama literacy gap baa jira laakiin ma aha xagga anigu saan u arkayo xagga luqadda runtii iyadaba waa caqabad oo qofku haddaanu luqadii aanu saani u fahmayn mid luqadii aanu saani yani proficient ku ahayn mushkiladu way ka haystaan ardayda jaamacadaha dhigta laakiinse mushkiladda usii dheer waxa weeyaan aqoontii oon hoostii aan laga soo dhisin ee xaggii sare laga dhisayo soo dhalinaysay waad lisaysay waad sidkaysay maraq baad bixinaysay baxaad sameeysay waad la falgalaysay hadhow waxay noqonaysaa taas in marka la soo magaaleeyo inaad erayo badan oo maanta halkan aynaan ku garanay Soomaali halka looga helayo talabaad waxa jira eray bixinta waa aqoon la barto sida erayada loo bixiyo ma aha in aad iska tiraado oo aan bixinaya aad ka doonto isaga bixiso erayada inagoon cilmiga baran ma garanayo sida ay ku sameeyaan min xikmka Ilaahay bay kamid tahay afafku sida loo sameeyo yani hadaa doonayso inaad eray bixin la sameeyo ama afka lagu sameeyo isbedel waa inaad shan hab adeegsataa waxa loo yaqaan semantic change waa in eray jiray aad micnay ka bedesho oo micno labaad siisaa afkeena uu jiray gar ka soo qaad garku mar waa kan hangoolku gar buu leeyahay ama garba ka soo qaad gar marna waa xadhigi marna waa gartii xagaan waxay noqonaysaa iyaduna garkii kanu noqonay geel markaad samaynayso aad geel leedahay ninkii geel lahaa geelaad ka dhigtay xagga dambe mudana ka raacayso scholar suffix baa xagga dambe laga taraa le marna way taban tahay marna way togan tahay marka ay taban tahay waa qofkii waxa lahaa geeli waa ninkii geel lahaa badna waa saadaal baa eragaas ku baxay marbay taban tahay oo ay tahay mid aan lahayn tusaale magaca dhuule leedaasi way taban tahay waa ninkii dhuuga loo waayay dhuugu waxa weeye dharkii waagi hore intaan dharkan inoo iman la xidhin jiray laga medkin jiray hargaha dadka qaarna qayraan bay u yaqaanaan inay taasi taban tahay waxaan ku cadaynayaa indhoole leebaa raacsan dhagoole leebaa raacsan adeeg wuu jiri jiray waxa jira mid la yiraahdo kaas markaa derivative baa la yiraahdaa compounding baa jirta inaad laba eray isku kabto oo aad eray ka soo samayso madaxweyne waa madax iyo weyn ama weyne markaad isku dhajiso micna labaad buu sameeyay eray gaar ah soo samaysmay waynu lahayn waanu jiray in aqoonta la adeegsado ayaa loo baahan yahay fresh grouping baa jira oo deedana gaar u sameynayso way markaa ciidamada markii la sameynayay muxuu ahaa darajooyinka gaashaan la sare gaashaan la dhexe eray isku yaalmaha oo laba erayo la sugeeyay laakiin ujeedada hadana sameynay wuu jira marka waa in aqoontiina jirtaa la bartaa afkii labadii afkii wax loo tabinayay kii laga tabinayay labadana waa in si fiican loo yaqaan hadaanay ujeedadii ka laga tabinaya aanad garanaynin sida imika aad delete u oranaysa iyadoo formatting aad wax delete ku sheegayso ayaad gifka sameynaysaa aqoonta aad gudbinaysaa waa gifkaas ku jiray
taasi waxay ka mid tahay caqabada laba waxa weeye dawlad iyo dadweyne midna kuma baraarugsanin inuu afkeena lumayo kuma baraarugsan inaynu caruurta afkeena wax ku baro hooyada iyo ilmaheedu way kala go'aan عربية في إنجليز ما حكوا بريني ولي هو يدي ما ودينا عربية قاعد كذا وأنا كلا قانين هذا لكن ما أنت هذه أفكار وحلقوا بريه وحول بهودي وحول بويشيجي مركا أقون تيجي وحين نقول أقون إنتاس أو برا أبيه بيجوجا أديرك بيجوجا أبوه بيجوجا إنتاس أقون وما أنت وحول براتي وهذه أفكار تغانا المهاير خوف والبا وحبوا يدينا حسيت شيء واحد ذلك ساينا إنه كلا قانه هذا طلبات وحوي دوائن دقالة الله هرا حول الدرقية ما وايو حسيت شوين هدينا برار وجا يدرين كاهلين لعقتنا ما هرينه نكساو حربا إنه عرب كسوقات يروح غير هل كان مدرسين هبلايين أو بحية ما قعوا بحنا ونحكي عربية ما قع على كسوقات النكي إنجليزي الشيء وأساسه كله good morning school tomorrow school مدرسة جامع هبل مدرسة محي سيد هبل أوكي حيكون تسونسا يعني ضد كلا مسكحة الله ينجح يستا إمي سنينو سومالي ضم مجا على تشري أو إنه نقاني أو قيمة أو أما هسوها الجماعة سكلها الله يغني أو سكول كستلوا بحين كريلا تاريخ ما دقناه أقون أو دمبا وحينجا هدان أفكار سيشرين وأنا أفكار سيفي عن أقونين أقون تاع قدام بيسي المبارس تاع اللينغويستيك سوسايرو حوي المه أنت أما قف كستا أنتو أفكار سكيا كان أيوبون كنا فكري كرا أفكار شيشانا كبران كرا أفكار هو يهدد كل يدتو كشيشانا ما بران كرت نعم important في مركز تكينيسا ها وجرى جابك بروفيسور كوشيجي إن التكنولوجي literacy of computer science يو ICT وجرى حسيش قارما لورد جايا مركو أفكيسي هودن كويه هاي وقرنا يو حلقة هذا يو أيوم بكرنا الله راعين كرا دب أقول نقطة إلى secondary schools كبار بريجي لا محها أبسومالي لو هالتبي دل يريد وحكوا برتي دبدها ما أنت تشوفها يعني واحد كله بريجا سانو كفهم بدنا ما أنت مركنا في إنجليز كإحنا الله قدقين يسلم بريجا وفهمني ما أنتم ما نفهم ده فيزيكس كي مركنا اللي جاي مركنا يرين ها إحنا اللي نغني تيرنا وامنقيني تيرنا وامنقيني محوها قرارنا وامنقيني مركا قرار مركا acceleration لا يقول شيء هران كقرنا يا ده بقول قرار يربان يورين ترى وان قرار قاضي يا بان يورين مركا مركو معلم كل هذا ولا قاري ولا قرارنا يا هري يجلسه لكن acceleration ده وين هذاك تينا عن قاطع ده مركا أنو تانله وحوين أفكو وحوي عقبات وين يشرته يعني إن دل دقوا الله فرسمينا وحوي وإني وسارد لفتيد ومركا أقونتي لغورية تدكي أقونت لهذه أديكسيتو دوكسية السراء خلاص لبيا تبناد سكندرية وحلقوا غورية بوجا لبيا سنة كلبيا تبناد هجادي أب سومالي فإنك هجادي أب سومالي سنة كلا بيا تبناد لوردك حين ما حد كفي لسيت كدونيسا يتكسو كيسا ولي بيتوا خلدن ولي سيد إنجليزي ولي وكوي لا تشي بنا يشن شغال هي ما هركاسات كفي لسه مركا أقونت إنا شو قال من بانكوري مع الأرض بانكوري وتشي بقى إرجع وتشي بقى نقله ما يقول معلمياني فيس هين مركز تمركا وكان عاد بكتير مركا هالك السلكة أي كل ما نسوي حوي وإن أفكي لا نقطه level kasta halka loogu gaarsiinay waa halkeeda waayo ma dhici karto cilmiga jaamacad lagu dhigayna ka elementary intermediate laga loo dhigo laakiin way isku xidhantay sida maxaa guriga lebanka la isku saarayo aqoontu inay kalka ka soo bilaabato oo marba heer la soo gaarsiiyo waxay noqonaysaa kii wax walba soo fahamsan inuu yimaado marka in afkeeni aynu u noqono biology haday tahay wadaadkeenu maanta nawaaqidul dumar ku ka hadlayo erayada qaar buu ka xishoonaya xataa in af Soomaali ku sheego marka goormaynu ka baxaynaa marka xishoodka maskaxdeena inagu guuystay
hayn marka waxaad arkaysaa inaan weli caqabadayna jiraan laakiin haddii caruurta lagu bilaabo oo si fiican loogu sheego markay waanaadaan cudur ku noqon mayso xishoodna ku noqon caadi baa looga hadlaya ingiriisida markay ku hadlaan carabta ku hadlaan kama xishoodaan biologiga la dhigay laakiin inaga afkeena weli inaga dhexdeena buu ka takooray laakiin haddii wixii la cilmiyeeyo la farsameeyo caadi lagu dhigo heer bixin cusub loo sameeyo marka aan waxaan qabaa in afkeenana uu ka buuxo la helayo haddii labadii aqoonood la isla barto tiimigeena la soo magaaleeyo oo la baro ama caruurta miyigii lagu celiyo ama halkanba lagu baro iyo haddii teknolojiyadii cilmiyadii kalebana la barto waa loo helaya sidii markaa horeba ilaa secondary loogu helay ayaa ilaa jaamacadna aan qaba in loogu heli karayo wassalaamu calaykum professorku wuu ku mahadsan yahay sida dheer runtii aqoonta iyo waaya aragnimada ku dheehan tahay afkeenii la inoogu sharaxay iyo waxyaabaha aynu u baahannahay bal iminka waxaan ku noqonayaa injineer Faarax teknolojiyada markaynu dib ugu noqono bulshada dhexdeedii aynu dib ugu noqono inay iyaga laftirkoodu isfahmaan waxay sheegayaan baaba caqabada tusaale ahaan soo qaadano telefoon numberka qof haduu af Soomaali kuugu sheego caqabad bayba ku noqonaysaa afkeenii inuu qofkii garan karo marka bal injineerka waxaan weydiinayaa caqabadaha bulshadan iyo isfahamkeeda laftirkeega dhex yaala teknolojiyada bal inaynu 2 iyo 3 iyo intii uu ka gaari karo si bal aynu u aragno dibba uma aragnaan u malaynayaa khalad wixii marka aynu garan weynee bal mid iyo 2 iyo 3 intuu ka gaari karo injineerka runtii waxaan qabaa horta doodi kama taagna luqadda aqoon lagu baranayo ma in luqad ajaanib lagu barto mise inteena lagu barto taa waan isku raacsannahay umana arko runtii inay doodi ka taagan tahay haddaynu aqoon baranano waxa fiican inaynu luqadeenna ku barano ama ICT ha noqoto ama wax kale ha noqoto marka taas iyadu waa mid runtii caqabado way jiraan oo iminka Facebook waxaad arkaysaa qof live ku jiro oo leh sii share gareeya waxaanu hay kelmadii u dhigmasay Soomaaliga hayd waxa jira Google Translator waa platform ay Google leedahay oo la geliyo luqadaha iyo turjumaadahooda haddaad iminka geliso wireless oo qaybta Ingiriiska oo tirada iigu turjun Soomaali wuxuu ku siinayaa wireless ma hayo kelmad Soomaaliya oo u dhiganta wireless kalmada binary waxa weeyaan luqadda uu fahmo computerku waa 0 iyo 1 haddaan deegaameeyana waa eber iyo hal binary wuxuu ku siinayaa binary ma garanayo wuxuu ku turjumo haddaad tidhaahdo computer Soomaali lagu qoray ku siinaya laakiin haddaad carabi u beddesho halka Soomaaliga wuxuu ka odhanayaa waa xasuub way turjumeen shaqay qabteen laakiin inaga luqadeennii shaqo lama qaban marka su'aashu waxa weeye shaqadan yaa qabanaya shaqadan eray bixinta yaa iska leh inay qabtaan waxaan eegay kelmadda la yiraahdo cable waa xadhigga network isku xidha waxay soo baxay qaybtii Soomaaliga inay ku qoran tahay fiilo waa xadhig koonfurta laga isticmaalaa laakiin asalkeedu waa Talyaani fiilo marka yaa geliyay Google Translate yaa u dhiibay kelmadda fiilo inay la mid tahay cable waxa u dhiibay qof Soomaaliya ayaa ku qoray oo yiri cable Soomaali waxay ku noqonaysaa fiilo waana Talyaani marka runtii waad arkaysaa mushkiladda taagan marka Soomaaligii yaa leh mas'uuliyadda in eray bixin Soomaaliga loo sameeyo ma waxa la reer Somaliland ma waxa la reer Jigjiga ma waxa la reer Soomaaliya ma waxa la reer Djibouti marka runtii waa su'aal in la isweydiiyo taa ku dheedo mudan yes qofku wuxuu cuntada u cunaa inuu noolaado luqaduna waxay eray bixin ugu baahataa inay sii jirto oo aanay dabar go'in marka laga soo bilaabo burburkii Soomaaliya luqadii may helin cid eray bixintii sii wada oo sii samaysa caqabadaha kale jira runtii waxaa ka mid ah shirkadahan teknolojiyada sameeya sida Microsoft, Google, Apple dhammaantood softwareadoodu waxaa lagu turjumay oo loo deegaameeyey luqadaha qaar sida Chinese-ka, Faransiiska, Carabiga laakiin Soomaaligii may lama deegaameyn maxaa keenay in luqadaha qaar lagu saleeyo barnaamijyadii
waxa keenay lababa mid shirkadii oo fahmay in barnaamij kasta oo la deegaameeyaa uu ka saameyn badanayo haddii sidiisii originalkayd loo daayo oo luqadii uu ku qornaa markii hore ee ingiriisahayd loo daayo inuu ka saameyn badanayo oo dadkii loo geynayay ee waddankaa kala deganaa ee suuqaa kala joogay ee dhaqanka kala lahaa ay aada u soo dhaweynayaan taasay fahmeen iyo waddamada laftoodii oo sharci ka dhigay inaanu soo gelin barnaamij aan la deegaamaynin kelmaddan waa cabdiraxmaan ku yerbooday barnaamij aan haddaynu soomaali idhaahno aan la soomaaliyeyn marka waddankeena laguma isticmaali karo windows barnaamija ama mobile app ama website aan soomaali ku qornayn imika china oo kale waa rule haddaad doonayso businesskaagu inuu china galo waxaa shardiya inaad localize garayso inaad deegaamayso oo luqadii chinese-ka ku qorto deegaameyntuna maaha oo keliya sidii professor sheegayay turjumaad oo keliya maaha translation way ka ballaaranta waxa weeyaan language-kii inaad turjunto dhaqankii culture-kii waddankaa u yaalay inaad tixgeliso at the same time inaad xitaa lahjadihii aad ku tala gasho oo haddii soomaaliya oo kale website soo gelayo oo la deegaamaynayo maaha inaad qaadato lahjada lagaga hadlo waqooyiga waa inaad ka fikirto lahjadaha kale lagaga hadlo gobollada kale laftooda marka dhaqankii bay saameynaysaa luqadii bay saameynaysaa dadkan fikirkoodii ayay saameynaysaa runtii luqaduna maaha wax laysku fahmo keliya waxa weeyaan identity waa waxa yacni bini aadmigu uu inagu garanayo ee inagu yaqaano aynu kaga soconnahay bini aadmiga intiisa kale marka runtii waan qabaa caqabadahaasina way jiraan waxaa ka mid a caqabadaha iyadoon cidiba iska xil saarinba sidii professorku sheegayay inaan cidiba iska xil saarin waddamada qaar waxay sameeyeen wax la yidhahdo localization lab ama center deegaameynta ka shaqeeya oo dad contributorsy intay isu yimaadaan ay ku tabarucaan in kelmadihii ama yarbixintii ay ka qayb qaataan oo app baa soo galay whatsapp baa soo galay facebook baa soo galay waa la wada turjumayaa wixii oo dhan waxaa laga dhigayaa local language marka way isu imanayaan sanadkii marbay shirayaan fan baa lagu bixinayaa laakiin waa in doorkaa ay qaadato dowladdu oo sharciyeyn laga soo saaro erebixintan si ay u shaqayso waa in la dejiyo standard la isku raacsan yahay iminka haddaad egto carabiga kelmadda computer waa xaasuub suudaan joog ama sacuudiga joog kelmaddu waa kelmadiiun waayo luqadii carabiga ahayd way wadaagayeen waddamadan oo dhami laakiin waxay isku raaceen standardkaas in waxaa loo isticmaalo innaga ku dhayn haddaynu soomaali nahay dadka soomaaliga ku hadla ee waddamada kala duwan joogaa waa inay samaystaan cid isku xidha waa inay collaborate gareeyaan waa inay wada shaqayni ka dhaxayso waa inay standard dejiyaan halkii fiilo loo sheegi lahaa google translator fiilo oo aada wax talyaani ah waa in wax la isla gartay oo dadkani ay isku wada raaceen xadhig baaba ka fiican haddii la odhan lahaa xadhig way ka soo dhowaan lahayd halka fiilo laga yidhi marka runtii waan aaminsanahay haddii la deegaameeyo aqoonta ICT-ga waxa ay wax badan ka beddelaysaa isticmaalkii teknolojiyadda iyo fahamkeediiba waxaanad ogaataan qofka luqad qalaad wax ku bartaa wuxuu u fakerayaa luqadda qalaad dadka iska leh siday u fakeraan wuxuuna jeclaanayaa dadka luqaddaa iska lehi waddankoodii iyagii hadhowna waxaa suurtagalaba inuu iyaga u tago oo ka tago deegaankiisii iyo dalkiisii oo uu iyaga u shaqeeyo oo uu iyaga wax u taro halkuu dalkiisii wax uga tari lahaa marka aqooni ama ICT ha noqoto ama aqoon kale ha noqoto waxay ku fiican tahay in luqadda hooyo wax lagu barto mahadsanid engineer waynu arkaynaa intaa caqabadood ee ay noo tiriyeen maanta aqoon-yahankeennan sharafta badan ee halkan inoo fadhiya xalkeedii inaan raadinana kolley waa mid inaga inoo wada taala mid kolley maaha qof iyo laba ee u taalo dhammaan ummadda soomaaliga ku hadasha bal waxaan u professor cabdiraxmaan baan ayaan gunaanskii iyo gabagabadiisi dadkana waxaynu siin doonaa iyagana su-aalo bal markaa ma jiraan professor cabdiraxmaan fursado imika jira oo u baahan inaan ka faa'iideyno si aqoontii kala duwaneyd ama tiknolojiyadii ICT-ga ama cilmigii iyo tiknolojiyadda aynu u bedeli karna afkeennii hooyo fursado ma jiraan u baahan inaynu hadda ka faa'iideyno kusoo dhawow
haddii aan weydiintaasi dee si yaroo kooban uga warceliyo haa way jiraan waanay buuxaan soomaalida waxaa jira haddii lagu sheelana waa la sheegaa haddii lagu sheegana lagu sheelana waa la sheegaa waxa weeye buuggaasi waxaan kaga hadlay waa erebixin aan dhaqankii ka keenay qof kastoo dhaqankiisa yaqaan kana wax ka yaqaanaana wuu samayn karaa ere ka qurux badan waa in erayo kaloo ka badan la sii helo mooyaane ilaa hadda wax dhaliila kuma hayo waxaan sameeyo isku day waliba inaan word processor Somali word processor aan sameeyo on ku gacan jiro oo uu og yahay professor Ceelaabe oo hawsha ku jiro dawladii iyo baac mushtarigana hadda raamka 8 muxuu ahaa container oo timiran soo dejinaya hal maal galiyo hore la iga siinay هو فردي انجينير كده هبشيل فردي لكن هذا أما يرادو دائما ثالث باند السنة يا أنا دكتور وريتشيو لهانشة هي دارتا إيميل جري ها لكن كمبيوتر يعلم سوق كردي وحكينا هبشيل دهورت بركة تألف تو براشة أوبا هانتا إيه يدتكو دقن كي برتان هدي أنا يدتكو جريني إن الدولة إني هو جامشو يوكو سدا وشركة إنجينير إن لو خصبه أي تاعي دولة هدي سكولة اللي هذا لما ديجي كرو afkale hadaan afka Soomaaliga mudnaanta la siinin taas loo laakiin hadii oo dhan weydo islaanta suuqa joogta waxa leedahay in kayga wax lagu yiri af Ingiriiska wax laga dhigay Carabiga wax lagu cuno af Ingiriis aqoon ma af Carabeed iyo Ingiriis wax ku bartay 2+2 waa 4 itini saad itini waa 4 afruush baa wax ku bartay daba plus daba waa 4 baa lagu yiri waa isku intii halkuma isu wadatay Soomaaliga in laba u geey afaroon bay noqotay horta marka hore waa inaad u garataan afku inuu yahay ama inaad wax ku baran karto ama dal kale shisheeye hadaa tagto ama aad dadka kula xiriiri karto ee aanay aqoon ahayn ama aan afku aqoon ahayn afkaaga kee aad taqaanay Ingiriisiga Carabida ku soo barto baa ruush leegu bedelay 8 bilood markaan dhiganayay ardaydan dhex fadhiyay shisheeyaha macallinkuna afkoodii buu ka hadlay marka waa la baran karaa dadaal baa lagu baran karaa hase yeeshee aan la iska dhigin ama hooyooyinkii aabayaasha loo sheego inuu ka hadlo af Ingiriisi iyo Carabi yaqaano in uu hayn in cirka ka soo dhacay oo lacag soo daadinaya rag badan oo waxba baran iskuul batagin baa maanta cid walba ka lacag badan risq ilaah baa bixiya afku ma bixiyo marka way jiraan fursadahaasi aqoonteedii waxa wada arkaysaa ilaa hadda dugsiyada ama jaamacado ma jiro af Soomaali lagu dhiga aan tan ahayn maxad af Soomaaliga lagu dhigo heer aqooneed ma jirto Hargeysa waxa loo oran jiray waa hoyga afka iyo fanka laakiin me jigjiga oo shalayto timi ayaa bilowday jaamacad le yani waxa lagu bixiyaa degree waa lagu bixiyaa ila maalintan halka aymi curriculumkii waan dejinay me dadkii dhiganay wasaaradda macallimiin ma soo dirayso ardayda ma xiisa uma hayaan addoonta marka waxa weeye miyaa dadkii lagu dilaya maya marka fursadihii way jiraan laakiin dadkii me marka waa inay dawladdu ka qayb qaadataa ay macallimiin soo dirtaa oo la hal baro waxaan qaba ama rumaysnay hadii la yiraahdo maanta ninka af Soomaali ka dhiga jaamacadda $2,000 baa la siinaya inay Hargeyso dhameeyay wada macallin noqon lay laakiin waxa loo arkaa macallinkii af Soomaaliga waxaan garanay barigaan yaray macallinka diinta dhiga isaga ugu mushahar yaraa Ingiriisku ninka af Ingiriiska dhigana taybar xubnaan jiro scholarship baa loo diri jiray inuu walba ku dadaal jiro af Ingiriiska barto waday ما ورنا في إنجليز أفكرنا كتجا في إنجليز كبرت إن دايركت بي إنه تعلي شيء في كيسي عرب تواصل يوكله دين تكسكو لكن وحويان إننا قلنا تاسو كله وإن الدولة يشاركه كحريان إنه أب Soomaali يقانو مركب الدنيا الحرة إسلام والأو ما أنت سوق جمال بحول يبين إسلام كوا بيا يبين يا نمبر كاجا إيش كذا ترى 3 4 5 6 7 وحياها جتابين في الصومالي هاي marka baraarujintaasi baa loo baahan yahay dawladdu inay maal geliso ama dadka lacagta inay maal geliyaan halka laga soo qaadanayo hay'ado muxuu ahaayeen mas'uul yar meel ka dhisa waxa ka fiican malayn la yiraahdo macallimiin hanalooyin hanalooyin scholarship hanaloosi af Soomaaliga hanoo dhigta ama han lagu dhigo halkani cid alla cidii diyaar waa manhajku waa noo diyaar iminka inta aan joogayba waa diyaar ilaa jaamacadda Hargeysa waxaan u laanahay 5 arday oo yiraahdo BA ba ku qaadanaya af Soomaali
marka waxa loo haystaa in gabaygii la dhigayo halka khaladku ka jiraana waa halkaas weey raggaan u dhigay nin waliba maalinta dambe uu yiraahdo macallin sidan baab Soomaaliga ma aanan moodin war cilmi baa la dhigaya linguistics baa ku salaysan af Soomaaliga la dhigaya erayadu sida u sameysmaan sidaan ka sheekeynay waxa soo dhan baa la dhigaya afafka sida isugu mid yihiin taariikhdu halka ka jirtay wixii dhan baa la dhigaya cilmi aydan lahayn haddaad linguistics barato dhakhtar baad noqon kartaa haddaad u haysataan dhakhtarka in jaamacadda dhakhtarka loo galo linguistics haddaad qaadato masters ma qaadato speech pathology baad dhiganaysaa xagga kale aad ka soo galaysaa dhakhtarnimo waa aqoonta afafka weey marka waxay fursadii way jiraan laakiin waxa weeyaan wacyigelin xoog leh loo baahan yahay aqoontana way taalaa rag badan oo PhD linguistics ku sita dalka buuxa oo Soomaaliya oo reer Somaliland dalka jooga dibadda laga soo helaya shisheeyaa jira Dr. Gush maharkii Dr. Gorgi Kapts sagaal wuxuu qoray buug af Soomaaliga ka qoray af Soomaali ku qoray qaar af Ruush iyo af Soomaali mahmaha isugu tarjumay buugiisu dambe 6,000 oo mahmahood oo Soomaaliyeed ayuu qoray waa nin Ruusha nin Soomaaliyeed oo lix bashita 2,000 qoray ma jiro marka waxaan garan waxa sheegaysay jeceysiyay inagina kan afkiisa waxba ku qoraa ingiriisiga wax ku qoraa wuxuu ku qoraa af Soomaali wax ku qoraa qoraaladu qorayo qof Soomaaliyeed qori kara ma jiro waxba af Soomaaligan ka hadlay marka inagiiba yani inaga hadda waxa yeesayso of course sidoo ka tagaya afkeen meelahaas ma laga dhaw hodan laakiin hodankii dawaan wax lagu daro hadaan la hodmin kaasina waa laga tagaya كان ولا جتجي إمك قف كستا إمك أنت كذا نهدلني وأنا درنتين أنا قاملا وير في صومالي بدن بروفيسور هذا قف كستا مركو هذا يو ولك هذا كشغية ميت جود بي محاين من تسي كسر على هذا زيزال إسلامي بيجوا شيء وحنوني مين الفيس كي دمبي أنا إن محاين إفعال وتقرنه إمك مركان توتيت كانوا قالوا بربوسل كده ما نقرينا أدو إسلام تاج وحوي أنا قف شارع الدين الله هذا يسوون أو مال فردة تهورت بالوحوي إذوك عين يسكبلون إذوك يسكبلها عين وينو يسكبلون بالكده ده لا مركز هذا يسوع دين سو قف سومالي الله هذا يسوع إن أت سومالي كل هذاش هاو قاعدين إيرك استون كل هذا لين سومالي وهذا عربي يا إنجليزي بهالكاين وفردة حوجي قارن سو دي إرجسيني وجرا لكن إرجسيت قار بالله بارين وأنا قديننا الصبح وناكسن محل عشاء حاصل موضوع في عربي المغرب عشاء سحور موضوع عربي سومالي جيدنا دين عكروا يلا هل كاسو كبر ورنا يكوية ده لو أحلو بهين لو هيليو أفكي السلام عليكم ورحمة الله وحنكون يقدر لهالك dadka iyagoo Soomaaliya oo Soomaali ku hadlay ku dara luqadda shisheeye waa laba nooc qolo weyday kelmadii Soomaaliga ahayd kama aha inay muujiyaan in waxaan aqoon tahay laakiin waxay waayeen kelmadii u dhigmasay marka waa inay jacbur isku dhex daraan qolana waa qolo u fahamtay inaad luqadda Ingiriisiga kelmada kamida isticmaashaa inay aqoon tahay oo ku faanaya marka labada qoloba runtii way jiraan mid kalena waan ku taageerayaa professorka ah luqad ajaanib hadda wax ku baranayso maskaxdaada laba shaqay qabanaysa marka hore horta waa inay turjunto waa inay turjunto kelmadii dabadna waa inay fahanto oo kaydiso marka maskaxdaada shaqo badan qabanaysa hadday luqad qalaad wax ku baranayso halka luqadii hooyo hadda wax ku baranayso qaybtii hore aad ka baxaysa ma turjumaysid waad fahamsan waad kaydinaysaa marka inaynu luqad qalaad wax ku barano oo batacad maskaxdeennii baabay hawl badan ay ku soo kordhinaysaa fursadaha jira ee ICT-gu waxa weeye haddii aynu soo saaro dad badan oo wax ku barta luqadii Soomaaliga ahayd teknolojiyadii waxa abuurmaya shaqooyin fara badan waxa suurtagalaya in bakhaar kastaaba uu samaysto computer uu ku jiro Excel-kii oo uu xisaabtiisii maalinlaha ahayd tii bilaha ahayd oo xisaabtii ku xidho oo u baahda markaa cid uga shaqaysa maadaama uu Soomaali ku qoran yahay barnaamijkii shaqo abuur badan haddii shaqo yimaadana dabcan dhaqaalihii waddankay qayb ka qaadanaysaa marka taasi waxay soo kordhinaysaa in dad fara badan oo maybe intii codaysay barigii dhaweyd in ka badani ay soo gasho isticmaalkii iyo adeegsigii
teknolojiyadda marka fursad aad u weyn baa jirta haddii aynu deegaamayno teknolojiyadda mahadsanid professorka iyo injineerka oo labadoodba iska daba qaatay runtii faa'iidada ugu badan ee ay ahayd maanta inaynu halkan iskugu nimaadno waxa ahayd inaynu ogaano fursado ma jiraan professorka saa uu sheegay fursadihii iyo sidii aynu maanta afkeena uga dhigi lahayn mid qaniyaba waa inoo diyaar laakiin waxa la laayahay dadkii kolley dadka la sugayaana iskama reebaye waa ani iyo adi iyo inta kale ina daawanaysa marka saa professorku sheegay dee afkeeni dad la'aan buu u dayacan yahay baan odhan karaa anoo sii daba socda hadalka professorka professor Ceelaabe guntiga gabagabadii haddii nahay bahdii teknolojiyadda khaasatan joogna meelihii waxbarashada lagu baranayay ها عقبات جري أنا صيد بصعدة سؤالشي خوري مركب حليلي دعسكو أنت مديد اللوسو ستو كسي بختيا محين يلينا هضينو نهاي بهذه أي سيتيجا بل أنت أي نسوق عريان الله خير هسيه ديجامين تاو بروفيسور كوينو صوّدو